بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين waxaa maanta farxadii weyn ah anigoo maanta ku soo noqday magaalada Hargeysa Somaliland oo muddo waxoogaa kaga maqnaa dibadda hawl qaran oo wadana fara badan soo maray inta badan horaan idinka soo siiyay warbixin fara badan meelihii aan tagay waxaa ka mid ahayd Ingiriiska oo aan ka qayb galay 17 May iyo sharaf fara badan oo Ingiriiska ahaa waxaa aan tagay Sweden oo qudheeda ka qayb galay waxa halkaas fariin baan idinka soo diray iyo warbixin dheer waxaanu kala tagnay Taiwan marka labadii wasiirkii iyo safiirkii la socday taamar buuxayn siiyeen haddaan taan yar ka raahdo waa wada markii nagu horeysay tagno waftigaana watay waxaan la kulanay dad fara badan oo khaasatan wasiirka khaarijiga waxa ugu muhiimsan in kooda hadalhayn sida cilaaqaad aan wada yeelan lahayn waxa kale oo aan tagay Ingiriiska saan ula kulmo oo shirka dhici doona 14 October oo Somaliland oo business forum weyn Ingiriisku qabanayo oo wasiirkii Siemens nagala shaqeynayay baan hawshiisa wadnay kaasina wuxuu dhici doonaa 14 October hadii la hayra waxa kale oo la kulmay ergeyga khaaska ah ee Soomaaliya Nicholas Kay saawla socotaan waa ergeyga Soomaaliya qaabilsan marbalka yimid laakiin waxa ugu weyn kooda hadal la xaweysay cilaaqaad Somaliland iyo hay'adaha caalamka khaasatan United Nationsku awooda shaqeyn lahaayeen wala socotaan oo horumarka iyo humanitarian ka isaga hoos yimaadaan waxaanu ka wada hadlaynay wixii isaga u khaasatan ee ah political office ka xamar kullu leh halkeeda aan ku shaqaynaa qosayso laakiin wixii horumar ah ama humanitarian ama training ama capacity building xagga booliiska xagga jeelasha xagga rule of law human rights ka genderka arrimahan ka wada shaqeyn karaan ka wada shaqeyno oo ku dadaalo in maaragtay war sugan oo ergeygu markuu security council ka brief gareynayo qadiyada runta ah uu ka ogaado sidaan ku soo dhaweeyno kulana shaqeynay isaga ciidankiisa sharfi aan buu ahaa aad iyo aad baan ugu faraxsan la kulanay insha Allah way iman doona halkan isaga dadkiisuba isagoo ka wada hadlayna arrimaha ay khuseeyay ku lug leh tababar trainingka police-ka iyo arrimaha soo sheegay inta ugu muhiimsaneed aan actually ku maqnaa taasay haddaan markay yiraahdo qadiyadan ka socota maanta taleex waa ogsoontihiin Somaliland حدود معينة لهذا حدودها قال لي مسلم باللوجي هاي حدود Somaliland لهذا عدة لغات بفريسان مايو مريكان كا يا إنجليز كا يا إيجو دبوا أكسوين حدودنا الكاميران حدودنا نكون رجني معها حاجة لو يعدي يا جيبوتي ونسكي حدنا هاي توقو شالة يا توبيد حد بينور دحية حاجة بنتلاند يا إنك أنا حدود بينور دحية يعني يا إنجليز كتجين مركا حدودهن ينا بدقلية شعبينا مركز تيجوغان إنه سجنوية شعبي غير Somaliland يا دولة Somaliland وكم مدحونه عبد محمد سيرين كم مدحدي هاي وحكى قوانين سجان نبض شعبي غير Somaliland مركز تيجوغان ما هتشوغ لو يعدا ما هتشوغ الأسقوري ما هتشوغ بربرة ما هركيسة إن نبض ينا بدقلية ضد كل حسيلونيو سيدا وجد بدت كنو تجين ضد كاسينو ياري وحقس عنكم موضنا basically وحين أتجني إن أي نسجنه أو نبض كردعضه أو عن ودن كنا جذيهيسا قلاقل يقص عن عندنا كسمين ولا سعوتان شبلو هرتد إن وزير مدحونا كوهين كبدلاند ودد يمدوا دد كدلي Somaliland مرة وقالان ميسو إن ودن كذا جذيهيسا عيد لقدله مسؤولية نجا سعران ويا أمض يا شعب Somaliland المسؤول كنا هاي وحنا بشيءنا عالمك أو إكسويه هران وقوض هذا by the way أمريكان كي إنجليز كي إيو ذبا مرة بعدنا وشيءنا حدود يدوى معين نبضنا نشعل هاي صدق حالات سنوات بان نبض كل دقنين ما أقولان كرو إن قص يدبات نلاك كانوا ضد نبض شعل بان هاي عالمك وح هو إنه كي بنا ملكسنا اللي غير جيست خاصة نجوز الخارجية وان نبض نسقني والله سعوتنا وحنا تجي بحر دار تانا فورم ورعدة إلى السعودية لو تبون مدحونا شيء وحنا نلقى ورسنا سيدنا نبذ ولا لسان وحنا تجينا أبوجا وأنا محمد عبد الله مدحونا يا شيء تذكر محنا نلقي سريان مركب وحوين يبينا هذين هاي Somaliland وحصلوني والنبض تاسع شركاتها بترولكا يدكذها أجنبي جودك شوغان هو إيمان يحصلون ذا نمعذ وطن كتال غنيجة بدنا واحد دورنا Somaliland كل هذا جبيهانتون النبض وحكي لنا عالم كبيرينه نبدأ إن نسوقنا أو كوير يكون ما لو سووا ذا waa muhiim nabad weyn ku caana maalay
in nin kastaaba ogaado inaanaynu nabadeenna galgelin karin khalkhal in aynu iska dhaafno waxa la yaalo wixii dhibaato inoo keenaya waa bilmatal haddii wax yar ka dhacaan Hargeysa ama qarax yar ka dhaco dhibaato keenaysa dadka waxa wada waxa oran lahaa min fadlakum dalkeena iyo dadkeena hay naga kharibina caalamka waxa kaliyan iibiyaan meel kasta la marayo waa nabad ee noo kaalaya waa la inoo soo socdaa ama ha noqoto sharikaad ama dad shaqo inuu abuuraya ama dad waxayna taraya ama nimcada wadankeena sidii loo exploit gareyn lahaa marka horta nabadu waa muhiim inaynu nabadda sugnaana meel kasta waa muhiim bari iyo galbeedna mas'uuliyad baa naga saaran marka waxaan doonayaa gabi ahaantiin idin sheego hadda saxaafadii tihiin inaan nagala qayb gashaan nabadda iyo nabadda xoojinteeda iyo nabadda suginteeda oo warar aan jirin oo sugnayn aanadin meel la ka sheegin ee oo sheegtaan runtu waxay tahay reer Soomaaliland iyo ciidamadoodu meel kasta way tagayaan meel kasta way ka nabad bay ka raadinayaan waa la socotaan oo neefaf loogu qalay waa lagu soo dhaweeyay waxay u tageen dad baa lagu dilay inaan nabadda sugno oo ilaalino dadka rabshada badan waxaan leenahay nabad baanu jecelahay Soomaaliland wada hadal iyo dialogue wax kasta ku dhamaysataa qofkii wax tabanaya xaq buu leeyahay inuu sheegto oo aanu dhageysano oo wuxuu qofkaasi tabanayo laga dhageysto laakiin qofna ka ogolaan mayno inuu qas nabadda Soomaaliland geliyo waa muqaddas waa naga go'an tahay ku yariye ku insaasaan aaminsanahay waxaan doonayaa inaan halkan saxaafadda uga sheego nabaddu waa waxa kaliya ku caana maalay 23 sano nabadda ahaynay Soomaaliland waa mudakar arrimaheeda wada hadal bay ku dhamaysataa marka waxaan oran lahaa inaa u sheegtaan caalamka oo aanad aad isugu mashquulin haddii statement bixiyo ama Mareykanka ama Ingiriisku ama EU-du wax inaka wadankeeni ma ogolaanayo safiirka Mareykanka intii Canada soo gasho in Buffalo shir ku qabsato ama Brussels gudaheeda qoraalka wax ku qabato marka waxa ogsoonataan wadankeena inaka ka talina inaka ka mas'uula inaka dhiigeenu horay inaka iska kicinay ninkii dhibaatadii loo keesiyay barre ilaahay baa mahadle nabad baynu nahay taraafkeenu wuu iman doona caalamku wina dhageysanaya markayna nabadeena xasiloon oo ogaataan talaah waxaan u tagnay inay nabad inaan sugnaa tahay dhibaato ma wadno cid kasta oo jaal lahayn walaaltiin baan kula dhamaysanay waana mahadsantiin صدق ورقته ودمده إثيوبيا هي جيبوتي يحب دولة ولا الحين إن حاجة حدود كإسرائيل إن كصدق ورقته واحد حدوده إثيوبيا هي جيبوتي وحدة أنت بدل إسرائيل واحد اللي هي إن السياسة ده يعني حدود ده قصوى الدعسة إن أريمها السياسة إنه بحيو ودمده جيبوتي إثيوبيا حصل كله سيدا دولة صعوتورتي إنك إثيوبيا علاقات كنير هي علاقات وين وعلاقات تاريخية برايم نسير كحول كله بالهرتاد بالله كله بحردار وزير الله كلنا ولا بد ولود أو ولا علاقة علاقات وين كده حيو سفارة أنا كده حيا ولا تنام أنا كده حيسة نبض إنه كودا شقينا intelligence كانوا وشجرنا واحد باتو وسومالي يتوبيا ترى مشرتو أنت بدنا وحوجا أي صحافة بومبونسو تجيبوتي ودلكيني ودنا ولا نهاي وكحنا قرحي ما نتلو تكرهاي واحد باتو شرا بشرتو وحنا نهاي وطن ككلية هذين سومال نهاي إثيوبيا تجيبوتي بوقا بفرزون كإلالية إلى آخر شو ذكرين لبدا دولة بيوجهين الله صعوتها وحتى جورا عادية تيم نبي بوليس كيني ميلتري كيني برد تجيبوتي سان حدود أو حسيلون نهاي بلغوا هذا مركا لبدا وطن ولا بوطن ولا نهاي سياسة دي دبد سومال عند عركة سيمارسة